gudoomiyaha guddiga iibgeynta xoolaha nool ee saddexda maamul goboleed ee waqooyi bari ee dalka oday Dubad Cali Cabay ayaa ka hadlay khilaafka dagaalada iyo xoolaha la kala dhaco ee reer guuraaga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waxaan ka hadalnay khilaafaadka u dhaxeeya dadka xoolo dhaqadka. Isdilku isdili iyo xoolaha uu kala qaaday. Aniga waxaan chairman ka ahay Kenya Livestock Marketing Council. 14 county ayaan xafiisyo ku leenahay. Kasoo bilaw Elgeyo Marakwet, Pokot, Turkana, Baringo, Samburu, Marsabit, Siolo, Wajir, Garissa, Mandera, Tana River, Kitui iyo Lamu. Waa inta dadka xoolo dhaqadka u dow. Waxaan markii hore u hagaajinay xoolaha suuqgeyntooda, beecooda, xoolaha iyo wixii xoolo ku shuqul leh, maqaarka, caanaha, hilibka, wixii xoolaha la xiriiro. waxyaalaha aan ku yar guulaysan ugu jira waxyaalo badan ugu noo dhiman. Hadda waxa dhibaatada u weyn waxa weeye dadkii abaarihi dadkii u soo guuri ismana nabadgelinayo xoolihii buu kala dhici uu isdili. Hadda shalay ama darar ariba laga qaaday reegaaris ay leeyihiin yaa la qaaday. dowladda Ruto, President Ruto way mahadsantay markuu soo galay wuxuu dhahay ma ogoli in la isdilo insecurity, ma ogoli in xoolo la kala qaado. wasiirkiisa arrimaha gudaha Dr. Kindikina in badan buu ka hadlay, wuxuu ka hadlay dadka in la hubeeyo laakiin dadka haddii la hubeeyo xal ma noqonayo. waxaan rabnaa inaan sheegno annaga Kenya Livestock Marketing Council aqoon baan u leenahay dhibaatada xoolo dhaqadka iyo khilaafaadka dadka u dhaxeeya. baaritaan aan suubinaa jira. waxaan rabnaa wasiirka aftawaaxilna waan ku dhahay daaw wasiirka arrimaha gudaha Dr. Kindiki inuu nala fariisto oo u sheegno siyaadaha looga hortagi karo waxyaalo badan oo annaga waxaa jira mar baan qalqaalinay in xoolaha la geliyo bir oo sheegi xoolaha neefkan meeshuu ka imaaday haddii birta gaaris ay tahay haddii hoolaa loo geeyo beec way sheegi in xoolaha ay ka imaadeen gaaris. traceability baa lagu dhahaa af Ingiriiska. tracing waxaa weeye wax aan raadin. waxyaalo badan baan ogta. waxaa jira afsawaaxilna haddaa waan ku sheegay hataa timaha annaga nagu yaalaan qaar dadkaa kaa xiiri oo meesha timaha lagu xiiri baa tegi. qaar dadka hortiisa iskaga xiiri kartaa waa garka iyo shaarubaha. qaar u baahan baa jira inaad meel gooniga tagto aad iska xirto. hadallaha qaar gaazeed laguma qori karo. waxaan rabnaa wasiirka Professor Kindiki waad mahadsantahay adiga madaxweynaha ijtihaadkiina waan u bognay laakiin waxyaalo badan oo war oo u baahan tihiin ayaa jira. maxaa ka mid ah waa la commercialize gareeyay xoolihii kala dhici. waxay noqotay dad u taagan baa jira xoolaha la dhacay oo beec raqiis ah ku qaado oo meel kala geeyo. problemkan wuxuu ka jiray Kitui iyo Garis looda la soo kala xadi jiray. markuu imaaday Maxamuud Cali Saalax yu go'ay Madogase declaration wax la dhaho ayaan la hagaajiyay. waxaan warka ku soo koobi annaga diyaar waxaan u nahay. dowladdu way mahadsan tahay, dowladda President Ruto, wasiirka Professor Kindiki wuu mahadsan yahay inaan isla fariisano oo waxyaalaha annaga aan hayno ee warka ah uu naga qaato. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.